Oh my goodness. You know, waxaan u sheegayaa audience-gayga buuggan ko asaga ko soo gatay aadna uma akhrin u jeeda ama waa akhriyay 2 jeer camal laakiin it's not worn out. Yeah, mashallah. Kan soo worn out u yahay day. Saan u akhriyay. Asaga dhingeysa xataa soo ka noqday. Is that Think and Grow Rich? The Black Choice. Ha. Literally was same book, but wuxuu kaga duwan yahay black experience uu leeyahay. Dad oo sideeda camal madow ah oo nolol adduunkaanayta horumarka gaareen waay. Mashallah, mashallah. So representation kii aan taabanaya, you know? Yep, it matters. Absolutely, it matters. Yeah. Seta by معنا caafimaadkaaga. How's your Thursday? Oh my goodness, it's a glorious day as always. So beautiful, so beautiful. I'm very, very, very grateful. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Life is beautiful. Yeah, I feel blessed, mashallah. And I'm especially honored to be here with you, my beloved sister. Oh, thank you, honey. I am so honored to have you here with me, and thank you for doing this with me. Dadkeena wax ugu tarno waan ku faraxsanahay, guys. Aniga Fadhiya waxaan u collaborate gareynay inaan dadkeena wax u tarno oo cilmiyadanito oo la dhaho mindset, you know, like make money with your mind. Hustle iyo rafaad iyo waxaaseeto. I personally, I'm trying to put that behind me, like in a saacado badan shaqeeyo iyo waxaan said in iska yareeyaan rabaa. I want to make money with money with my mind. Absolutely. That's my goal. I think that I'm taking you with me amal journey waaye. We are waxaan daawanay Saka, one of the first videos igu soo baxay waxay ahayd I don't even remember gabadhu wareysanayay because wali indhahan isku yara haystay oo markaan cadaynayay bay ahayd, and Safiana was getting ready for school, and marka I don't remember who she was. It was a short video. barnaamij la yiraahdo School of Greatness. Oh yes. This very handsome. He's from Ohio. Yeah, Lewis. Yeah. Bruce. Hi, exactly. Marka kaasa igu soo baxay, so I just clicked, and then marka wuxuu gabadh buu wareysanayo marka haweeney buu wareysanayay. She looked like she's about maybe in her mid 60s keedii meelaha. Marka wuxuu ka wareysanayay. I think the title was easy way to become rich or something like that. Marka uu weydiinay wuxuu yidhi, and so tell me more about this. Arrintan iga sheekay. You have a fascinating story buu ku yidhi. muxuu ahaa lacagna kamaad imanin. Waxay tidhi marka waxay qosolka iga dhamaysa aday kaa soo xusuusay. Waxay tidhi, so I have been of course broke for a long time, waliba you know, in my 20s and 30s keygii. She wanted to be a filmmaker. Marka waxay tidhi markaan fahmay this method, arrintan the easy way of creating a life of luxury, si fudud oo nolol qurux badan oo raaxo leh lagu sameeyo, markaan fahmay bay tidhi, and anigii baaba yaabay how easy ay noqotay. Waxay tidhi waxaan garanayaa bay tidhi, and barely biilashayda aan iska bixin karin. Markuu biil ii yimaado bay tidhi, for example aan biil ka soo saaro meelka, markaan ka soo saaro waxay tidhi intaan qunyar furo waan isu sii diyaarin jiray, waxaan ka dhigi jiray bay tiri horta waan ogahay waad ogtahay markay biilashu kuu soo socdaan ma ogtahay. Waxay tiri marka waan tagi jiray waxaan ka dhigi jiray towards the end of the month markay tahay, and I'm gonna go to the bank oo kale lacagtaydii baan kala soo baxaya baan ka dhigi jiray meelka. Markaan soo saaro electricity iyo cable-kii iyo telefonkii iyo waxyaabihii kale wixii biilashii ciidda ka badnaa credit cardskii wixii markaan soo saaro bay tiri mid kasta markaan furo waxaan dhahdaa, oh my goodness, look at this check. What check? $1,200. Oh, thank you, Allah. Oh my God. Mid kale haddana fura. Oh, $200 check. Oh, thank you. Waxay tiri sidaa odhanayay. Waxay tiri markiiba waxa iga dhaca horta culayska waxa iga dhaca in lacag la iga doonayo aniga. Waxa isla markiiba mindset-kaygii baa isbedela in lacag ii soo socoto. Deetana waxa dhacda bay tiri meelo aanan ka filanayn in exactly that amount uu ka yimaado. Dadka waxay leeyahay bay tiri wax khiyaaliya marka hore, which is very hard. Waa sababta keentay in dadka
and maaragtay laga dhaadhiciyo arrintan because waxay nagu qafilan because waxay tiri waxa dadka ku qafilan mushaharka aad subaxii u kacda ee u kalahdo wax dhaafsiisan inaanad helaynin waa sababta keentay paycheck to paycheck ma garanaysaa but it actually is true wallahi it's so true anigu all waxaan arkay long time ago haddaad weliba anigu waxyaabahan kaga yaabay waxay ahayd sadaqadoo kale sadaqadu is so incredible horena waan idinku sheegay the more qof baan ugu talagelayaa inaan wax u diro isagoon ogeyn aan kaga naxiyo iyadoo wixii aanan weli dirin lacagtii bal meelay ka timi aad bagaro meel kale kasoo dhacaysaa it is just incredible I know rumaysigii baa dadka ku adag but this is a method that works arrintan waxan waa that's why that in yari ay u sameynaysaa arrintan in yari ay u sameynaysaa it's because waxay u leeg tahay dadkii khiyaali but it's not khiyaali qof waliba waxa uu helaa nolosha uu hareerihiisa ka arko ee uu isku qafilay in aan wax dhaafsiisan jirin if you want life nolol suquuqul ah cidhiidh ah fakhri ah haddaad u haysato noloshu inay intaa tahay iyo adduunkan in lagu keenay in lagu itixaamo in dabada lagaa eriyo in lagu baacsado inaad oydo inaad dhibaatooto haddaad isleedahay intaasaad u timi then and intaasun baad la kulmaysaa haddaad isleedahay waxaad u timi ilaahay ilaahay inaad caabudaad u timi laakiin caabudadii maxaa ka mid ah caabudada waxyaabaha ugu horeeya ka midka ahiba waxay tahay first and foremost inaad rumaysato ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku jecel yahay adduunkan ku keenay abundance-na adduunkan uu dhigay maxaa ka mid ah abundance ku dhigay haddii uu adduunkani qaxar miidhan yahay nolol meel cidhiidha oo desert ah oo gubanaysa oo laysdilayo oo laysbaacsanayo oo maaragtay la qaxayo bay noqon lahayd may noqoteen meel 70% ay biyo yihiin the earth is what 70% water I'm a 72% water that itself wa inti badnayd waa raaxo waa biyo water is life it's luxury it's beautiful markaad eegto it makes your problems go away that's why dadku markay fikirayaan ay bodies of water u tagaan to look at that's why laynoogu sameeyay inaynu isku maydhno to cleanse ourselves that's why I marked u cabayno because it sustains us it gives us okay 70% and then ku dhigay dhirtii buu ku dhigay oo flowerkii oo kala nooc ku dhigay hatta one flower laynooma dhigin every shade of flowers every nooc baa laynoo dhigay waxa laynoo dhigay the land the way I diverse u tahay loo qurux badnaysay waxaas oo dhan waxa si lagu inspire gareeyo adiga what is it that you want it's like coming to this beautiful restaurant or menu inta lagu horkeenay lagu yiraahdo what do you want maxaad inda sarcaad kaasoo dhan ka dooro waxaad doonayso so we need to pick what do we want just like maqaayad marka aadaysid markii menuda kortaala kama fikirtid maxaa la ma aqaan waxa doorto waitress-ka inta fiirisid ma dhahdid maxaan doorta markaas you know waxa rabtid adduunkana saasa loo dhaqmaa just waxa rabtid le maskaxda gasho waa helaysaa ku maxaa la ku niyad lahow hamigaaga ha joogo adigana qeybtaada qaba mas'uuliyad baa ku saaran cirka wax kama soo dahtaan waxyaalaha lagu baahan yahay find the vehicle gaariga meesha isku geynayo raadso absolutely maxaa la dhahaa kala markay noqoto maal iyo maal dhisid oo adoo u rafaadin ama dad qiyaanin way dhacdaa way si fudud ay ku dhacdana waxa waaye koow horta inaa aaminsan tahay inaa u qalantid wax aadan ogeyn inaa u qalantid weligaa maskaxda xataa kuma soo dhacayo absolutely so the first step waxa waaye feel that you are worthy inaa u qalantid markaa ogaatid inaa u qalantid koow wixii ay u qalantid waa lagu siinaya hadda maanta maqaayad markaa gashid haddaa meeshaa fadhiista ma aqaani meesha inaan joogo ma laigu talagalay hoostii xataa lagu dareema waxaa lagu fadhiisinayaa meesha ugu foolxun oo qaybta oo maxaa la dhahaa kaleeto aan dadka VIP da ama laga ilaalinayo view qurux badan lahayn exactly laakiin when you walk in adigoo madaxa ku taagaya oo garbaha saan iyo qoortaada kala baxsan la dhahdid maxaa la waxa sheegatid waxa rabtid sheegatid meesha ugu fiican lagu geena because you exude waxa ka laga dareemaya confidence sida camal you belong meesha ina imaatid waa u qalantaa you not absolutely ara water matihi malay bi laga dhaxiyo ku hayo matihi meesha waa leedahay
waxaa lagu arkaa you belong here adduunku waa saas waa laisku arkaa dadka people feel your energy so ogow waxa kasta inaa u qalantid adduunkaanaytu wixii aad ka rabtid waa ka helaysaa laakiin steebyaa jiro kowna maskaxday ka bilaabataa oo aaminsanta inaa u qalantid markaas markaa aaminsanta inaa u qalantid wixii waa ku you're gonna work waa u shaqaysanaysaa qaybtii shaqada nooceeda lagaa rabay waa ugu shaqaysanaysaa tan kale maalintaa heshid ma u malaynaysid inaa qof kale wax ka qaadatay camal ani haddaan aan suubiyo maxaa laayay bishii aan suubinaayo 20,000 oo ogahay dad badan oo 20,000 bishii suubini ay jirin ma u malaynayo aniga because ana 20,000 suubiyo dadkaasi wixii faqiir leeyihiin haddaan saas u fakaro waxa dhacayo haddaan u fakara aniga 20,000 aniga aan bishii suubiyo inaan ka qaadanayo israaqada dadka kale koo waxaan rabaa inaan qarsado sababtoo ah ma rabi in la iga maseero ma rabi in la ileeyo ma rabi inay maxaa la dhahaa la ogaado sirteyda oo hadhow qof iska ku dhaqmo oo isagana lacagtii oo kale uu suubiyo saddex waxaa iga baxaayo waxaan suubinayaa koo waxaan ogaanay tan sax dhinacaas waa dhinaca qaldan marka qofka rabo inuu ka baxo limitationkaas waa limited mindset waa scarcity mindset waa lack mindset marka aad ka baxay waa koo ina aaminsanaatid koo horta kulligeen adduunkan joogo waxaa jira waxa la dhahaa abundance kulligeen adduunkan joogno 20,000 bisha waa suubin karnaa mana aha macnaheeda qof kale inaad ka qaadanayso calaykum asalaam daahir qof kale inaad ka qaadanayso maaha tan labaad ilaahay israaqad uma weyn kulligeen we can all be millionaires and caadiya ahaan karnaa macna ma laha dadka waxa ka reeba waa maskaxda tan saddexaad waxaa waaye haddaa maal haysatid maalka afkood dadka wejiga u dhudhufo laguma dhahooyo laakiin dadaa u baahan raba ada inay ku arkaan dadaa u baahan they will relate to you example inaa u noqotid inaad dadka bertid waaye sidaa adi meeshas ku gaartid adi inaa bertid waa because success waxaa la dhaho wax shil I don't want to say shil like wax iska dhaca ma aha wuxuu leedahay waa wax maskaxda ka dhaco koo waxay leedahay istabi gaaro loo maray leedahay oo maskaxda ku xisaabsan badanaa so dadkii markaa rabtay inay gaaraan horumar aadan aaminsanin scarcity waxaa rabtaa qof walba wuxuu raba inuu helo waxaa aaminsantaa qof walba inuu u qalmo hamigiisa inuu gaaro sababtoo adiga isku malaysid saastuu adiga waxaa u malaysaa hamigaaga inaa u qalantid bes markaaseeto example aa u noqonay hadda that's why daanka wata idin sheegaya labadan buug waxaan u haysto kanaan ku soo katay kana popular ahaa social media dadka dhan laga hadli jiro waagaasayto kanaan soo gatay kan markaa aqriya I like it wax walba laakiin iskama dhex arkin odayaal caddaana ka buuxa buugaarin iskama dhex arki karin marka waxaa research yaraan susuubiye waxaa ogaadayba mid dad madoowa inuu jiro you see how can dadkayga madoowa is more worn aadan u isticmaal aadan u aqriya waa reference book camal u yahay waxaa rabay dad aan intaan aqriyo oo ani camal ah because at the end of the day haddaa rabtid wax inaad gaartid you need adduunkaanayta ma jiro qof keligiis wax gaari karo you need a village run ahaantii dadaa lacag ku siina inay kuu suubiyaan shaqo dadaa maxaa lahaa kaleeto waxay kamid yihiin lacag ma siinaysa laakiin way ka qayb qaadanayaan horumarkaaga no man is an island absolutely exactly so keligaa wax ma gaari kartid indhaha haddaa dhigi kartid wax ma qaban kartid always waa u baahan tahay support system u baahan tahay caawina u baahan tahay marka aniga waa u baahnaa inaan aqriyo qof madow struggle qof madow waa dhibabka overcame because qofka saa ugu qabo qof tayralka dadka doonaya ka qaata ha Think and Grow Rich was very famous book. Buuggan kaleetada kanis meel walba xataa YouTube oo bahalkii ku jira isagoo dhow nooca anigaaba hadeer isagoo update lagu sameeyey hadeer dib u dalbada adeed asoo xataa maxaa lahaa kaleeto more reference waxaas lagu jira Napoleon Hill amazing book that book inspired so many people exactly this book anito beel waxay ku fiican inay caadi loo akhristo guys haddaad jeceshahay buugag badanaa markaa gaariga wadada meel fog u socotay iska dhageysa laakiin buugga markaa akhrisid iyo markii aad dhageystid isku mid uma heshid informationka also marka buug kasta hal mar leh akhrin meel ha dhigin wali caado buugda action kartaa absolutely and that's the whole because waxa laga yaabaa marka ugu horeysiya labaad iyo saddexaad ba inaanad fahmin because adiga laftaadu you're growing you're changing as time goes by marka absolutely marba si cusub iyo vision cusub bad
baad ku arkaysaa oo ku eegaysaa ku akhriyaysaa exactly. So you know it's just qof walba u baahan yahay qof example hadda inta Fatxiya intaad imaan waxaa dhahay aniga camal markaan arko Fatxiya oo business successful wadato oo wax kala socoto I can see parts of me in you but maanta gabar oo cadaana markaan arko ama xataa gabar madow iska dhaxataa just qof Mareykan ku dhashay sheekooyin iska dhacin karaa jiro waxaan isdhihi karaa Allah maxaa lahaa kale waa qof wadankeeda ku dhalatay waa abkeed lacag u soo suubiyeen qoxlati waligeed malaa waa looga dhintay malaa way dhaxashay all that stuff maxaa lahaa kale dad baa meelo u joogo dad baa caawin laakiin Fatxiya maxaan dhihi karaa waa aniga camal sida wadanka u maadluumaatay waxay soo martay waxaan soo maray waxay haysataa maxaa lahaa kale dhaqankeyga waxaas markaan fiiriyo I can see so much of me excuses aan isticmaali karo maanta ma dhihi kari oo maxaa la family members kada meelaha ugu jiro wax u fududeeyo contracts iyo saasan miskala dhicin kara sheekoonkaas marka waa muhiim maanta data qof horumar wax weyn ma aha wax yiriisa horumar hadaa gaartid imal inaad kala wadaagtid bas qof baa example u noqonaysa qof baa dhiirigelinaysa oo ku dhiirigelmanaheen awalka hore qof kale to ajnabiya taas ina la wadaagaan rabe aniga ahaanteyda That was so beautiful. Absolutely. It was so beautiful. waxyaabaha keenaya shalay baan ka wada hadlaynay nacam why bay Soomaalidu uga qajishaa inay maaragtay hataa anu hadda waxaan bilaabay dharkayga quruxda badan ma xiran jirin I have so many beautiful clothes covered dhan oo ii buuxa and I haven't been wearing it the last several days waxaan you know what because I have been on maaragtay self-employed for the past 14 years marka you know anigoo laba organization rangaraynaya haddana you know gurigaygan ka rangarayn jiray waxa laga yaabaa khamiista inaan xafiiska aado ama khamiista iyo jimcaha you know or meetings iyo waxyaabahaasuna aan u baxo so and then you know markii dambena with YouTube iyo with everything so it became so easy inaan dusha saruun wax yaroo fiican ka xidho you know ama dharkayga caadiga aan iskaga soo galo so I realized, oh my God, a lot of my beautiful clothes, you know, they're collecting dust. And it's time for me to actually start. Model. What do you think about this? Do you like this dress? Oftentimes, because why are you showing up? You know, you have to say so. ما intaas ma waxaasa miyaad noo faanaysaa taasna taa awgeedna dad badani way leydkooda way u damiyaan ta kalena waxa weeyaan in la baryo dadku in la baryo ay ka cararaan and which can be exhausting because you know waxyaabaha aan u joojiyay TikTok inaan soo galo live waxa ka mid ah dad baad soo qabanaysaa dood baad wadataan hawlaha waxyaabaad doonaysaa inaad ka hadashaan qof baad soo qabanaysaa wuxuu oranayaa caruurtii bay iga gaajoonaysaa muxuu ahaa waxba ma haysto muxuu ahaa dhakhtar baan ku jiraa I know inay dad badan oo adduunka dhibaataysan jiraan laakiin qof far kaliya fool ma dhaqdo imise qof baad caawin haddaad midda kale haddaad ka dhigato dadkii way isku naxayaan way kala cararayaan tobagiiba meeshii buu ku baktiyaya ma garanaysaa marka nacam waxyaabaha lagama maarmaanka ahi waxay tahay in horta dadku ay ogaadaan sida aad sheegtay sida muxubba sheegtay إلهي سبحانه وتعالى أدون كان إنه ممكن إنه نبعته نوع كليا إلهي سبحانه وتعالى وحول بح ما كانوا وينودجي هل كانوا وينودجي أدون كانوا وينودجي yeah it's everywhere it's up to us إنه كلا صوب بحنو نمعذ نلكين نتعالى نلكين حتى ونمعه هذا إنه أنت إنه كذا لبسنا إسكفر يسنون نحنو باش عالم كان كسوة يدك كدبدة شراء هذا واحد بالعمل طيبة the last several years شاكعة qof kasto xanuunsada qof kasto wuxuu baahda in la yiraahdo dadkii barwaaqa soorankii dibadda jiray oo Facebook iyo looga dawiro iyo goorma mar eeg dadkii waxay la qabsadeen marka nolosha ciriirka ah ee gaajada ah ee in dad kale wax laga sugo mooyaan xataa Ilaahay aan wax laga sugin waxaad arkaysaa waa meesha ka imanayso believing in yourself inaynu inagu ismaysano how often baad aragtaan dad indhayara oo loo dawirayo for example yeah ma arkaysid because laakiin maxaad arkaysaa fiidiyoyadooda dhan waxaad ku arkaysaa qof ayaa dhaweyd waxaan dadka tusayay a man he's a torso he's basically a torso
qaarka dambe oo dhan uu go'an yahay waa torso laba wuxuu haystaa pieces of wood gacmaha gashtay river buu xataa kaga gudbayaa meel biyo qulqul biyo ka qulqulayaan ayuu kaga gudbayaa seef mashari tan maaragtay dabka la geliyo dabkana la geliyo baararigana leh mashariga maaha maxay ahayd chainsaw buu sitaa ya wuxuu meel duuruu gelayaa lambar buu soo googoynayaa dhir dhaadheer oo intaa leeg intuu koro ayuu googoynayaa hadhowto deetana marba xabad intuu soo xadhi ku xidho ayuu soo jiidayaa sidii buu ula soo soconayaa gaadhigiisiyo the other side of meelsha sort of like biyahan durdurka ah the other side of taala ayuu soo jiidaya marba xabad ayuu buuxinayaa wuu kaxaynayaa wuu soo iibinayaa this is a man who is a torso waa qaar sare intaan bisle waa torso waa intaan nacam lugihii oo dhan waa go'an yihiinba waa just laga bilaabo halkaa qaarka xiniinyaha ilaa iyo inta sarada anyway marka nacam bad wuxuu rumaysan yahay in uu wax walba qabsan karo oo samaysan karo already waxa lagu koriyay you are a man bini aadan baa tahay sharaf iyo cisi iyo karaamo leh you don't need uma baahnid inaad cid barido oo aad meel fadhiisato waxa weeyaan waad nooshahay ham baad leedahay wax walba waad qabsan kartaa waa kaa baabuurkiisi buuxiye soo iibsanaya waxaad arkaysaa laba dhalinyaro ah oo waxay sitaan digsi baaldi majarafad iyo mindi duur bay kaligood soo gelayaan duurkaasi building waxay dhisayaan a mansion meel biyana u dhow a mansion bay dhisayaan halka kalluun bay soo dabanayaan halkaasay ku karsanayaan they build this incredible luxurious house oo kale ayay halkaa ka dhisanayaan marka waxay ku tusaysaa markaad naftaada rumaysan tahay when you believe ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba inuu kugu galladay oo ku siiyey dhulkana uu kuu dhigay wax walba oo aad u baahan tahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cirka wuu kaaga soo daadinaya biyihiibu cirka kaaga soo daadinaya ma garanaysaa laakiin iyo nimcadii kale that will sustain you laakiin yaa looga baahan yahay inuu munaafacadsado oo la soo baxo adaa lagaaga baahan yahay taasi marka first and foremost sidaad adigu sheegtay ay muxuba sheegtay you have to believe inaad xaq u leedahay inaad si nolol qurux badan oo sharaf iyo cisi iyo karaamo leh aad ku noolaato in nolosha cisiga iyo karaamada lehina ay first of all ka bilaabato nolol xalaala oonan cidna wax ka qaadin cidna wax ka dafin cidna wax ka khiyaamayn aad xooggaaga ku shaqaysatay wax aad jeceshahay oo ka fikir baro naftaada markaad naftaada barato naftaada sidaad ku baranaysaa you have to find moments of silence quiet moments waa inaad heshaa haddii 24 hourska aad wax daawanayso oo buuq iyo qaylo iyo qax iyo masiibo aad ku dhex jirto oo daawanayso iyo wax iscaay iyo wax isu tirinaya isma maqlaysid hamiga naftaada ka guuxaya maqli maysid qofkaad tahayna is ogaan maysid isna baran maysid ma garanaysaa waxaad u baahan tahay in horta bal aad ismaqasho who am I who is Fathiya Cabsiye waayo Fathiya you have حتى Fathiya halkaa iska dhig qofkaad tahay muxuu yahay maxaad jeceshahay maxaad neceb tahay maxaad doonaysaa markaad ogaato waxaad doonayso waxaad xataa helaysaa inaad tiraahdo waxaasaan jecelahay waxa kuu fududaanaysaa waxa aad jeceshahay inaad nolol ka samaysato qurux badan because marka waxa aad jeceshahay marka aad sii daba gasho ilaahay wuxuu kuu jeclaysiiyey waxaa remember this allah kuma jeclaysiin waxaa ciyaar maybe waxaad jeceshahay inaad maaragtay dadka cidiyahooda iyo farahooda iyo xataa aad masaaj garayso maybe that's waxaad lacag ka samaynaysid you just love that maybe you love inaad dress up samaysid oo labisatid okay oo aad dress up ciyaartid okay deetana waxaad odhanaysaa maybe wax kaleba samayn maayaba waa kugu soo noqonaysaa maybe all I have to do waxaan u baahanay inaan sameeyo inaan labisto oo dadka u model gareeyaba oo marba intaad banaanka tagto dhar cusub soo iibsato aad model gareyso haddaad doonto celi qaarkood ha dhowto laakiinse model gareeyo dadkii tuso deetana lagu daawado then you become a guru inaad dadkii style garaysid oo tiraahdo waxaan isku qurux badan okay
dadka cidiyaha iyo gabdhaha inaad ka shaqaysaa jeceshahay. This is just an example. I'm just simple example. It can be anything. It can Exactly. be anything. It can be anything. I'm just example. Makeup-ka hadda gabdho badan aad jecel makeup marsashada. Exactly. Whatever aad jeceshahay ayaa lagu fududeynayaa in aad qani ka noqoto. Waa important waxaas inay noqdaan waxaad jeceshahay because uma ekaanayaan shaqo iyo wax aad ku daasho iyo waxaad 10 saacadood ka shaqayso 20 saacadood isku soo wareegay hadaad ka shaqaynayso ka daali maysid because it's something you love. But ogow horta in dawiyo badan ku furan yihiin. This is who I am, qofkan aan ahay, waxaan aan jecelahay, waxaan aan doonayaa. You create a world, duni aad sawirato, aad samaysato, vision board soo qaado, gurigaa doonaysa inaad degto, gaarigaa doonaysa inaad ku hor falato, nolosha aad doonaysa inaad ku noolaato, wax kasta wixii tartiib waxaad create your own world aad aado oo aad ku dhex lunto oo aad kaga maaranto buuqan iyo hugunkan iyo waxaan meelahan ka buuxaya ee aad daawanayso because horena sidaan ku sheegnay maskaxdu it's an algorithm waa just like algorithm ka aynu daawanayno waxaad mar daawato aad ku mashquulsho aad energy-gaaga siiso aad maaragtay energy-gaaga siiso ayaa adigana noloshuna halkaas ku aadaysaa. What was that famous saying? Where your attention goes, your energy goes. Yeah. Marka, be careful energy. Create your own world. Duni samayso. You can because waxay isugu soo shubatay adduunkan oo dhan wuxuu isugu soo biyo shubtay. Imagination. Wuxuu yidhi Albert Einstein. Imagination is far more important than knowledge because knowledge beginning iyo ending buu leeyahay. Imagination is endless. It's endless and you have it all right here. Marka, let's not ever aynu joojino inaynu ka khajilno nolosha quruxda badan ee aynu samaysanay inaynu la wadaagno dadkeena walaalaheen si aynu marka iyagana qalbigooda iyo maankooda u xadantayno. Yes you can adna waad samaysan kartaa muxubo hadeerto I don't know anyone who is even more inspiring than you. Wallahi billahi tallahi. Because annaga waxa weeyaan dadkeedii and disability oo kale. You know, for example, dadkii oo lixdoodii lixaad haysta ayaa disable noqday. Ya adigoo muxuba iyadoo gabadh yara oo maaragtay wadankan iyadoo yar timi oo waxa weeyaan markaan ku daawado aan ku dhageysto I mean qof kastoo ku arka even odagaygu dadkii ugu horreeyay uu arkay baad ahayd he's like that Somali woman is just incredible she is so amazing muxdeeda iyo maaragtay just wuxuu yidhi waaba the only Somali I think uu daawado ma garanaysaa because you draw people in ma garanaysaa you have no limitations annagana waxa weeyaan qof ilaawo iska aamu qofkii curyaan baa tahay maxaad ku hadlaysaa muxuu ahaa waxaan wad madowdahay maxaad ku hadlaysaa nacam lack of limitation we need to stop this limiting beliefs and of course maanta YouTube-kaygan kaga hadlayay the other thing waxay tahay qofkii horaad ahayd whatever aad ahayd I think qofka inaad ka timaado weeye you have to kill that person you have to become in order for you to become qof soo jiita quruxda iyo nimcada iyo irsaaqada you have to become qof wanaagsan hello you have to become waa inaad noqotaa qof wanaagsan oo ummaddu ka nabad gasho oo dadka wanaag la jecel oo dadka aan ka masayrin oo horumarka iyo wanaagga iyo inta uu isagu isleeyahay xaq baad u leedahay naftiisa la jecel yahay dadka kalena la jecel ya wixii shaqayn waayay you have to be able to inaad ka iman kartid oo ka tegi kartid you have to yeah exactly like you know abay horto mahadsan tahay adii abooba ala mahadsantiin you know Fathiya waxa waaye albaab dadka waxa badanaa dhibku u keeno and it really everything horta wuxuu ku noqonayaa mindset-ka maskaxdaanito oo u qalanka dadaa arkaysa albaab hadduu furman waayo maanta albaabka soo ag fadhiisanaya garaacayaan ku korjabayaan way garaacayaan way gilgilayaan furmo haliga fur midda albaab kale halkan ku yaalo oo xataa laagta ahayn oo u baahan leh geedkiisa intii la wareejiyo intii la galo laakiin meel kale uma jeedaan guys hadduu albaab xirmado boqol albaab oo kale jiraan maalin hore idin dhahay qaarkood albaabka markaa dheer wuu xiran yahay laakiin haddaan saan u riixid horu kaaga furmanaya waa bush garaysa waxay uu ku furmaa
raadsi albaab furan halka albaab oo xirmaday barkinta lama agdhigto. Absolutely. That's one thing. Because waqti iska dhuminay niyada iska dilaysaa xataa waxaan shaqeynay marka you keep trying aniga business meeqa business aan ku soo fail garaysmada oo ku soo qasaaray meeqa business ay kala baxeen sababtoo ah markaan qasaaro ma cabsi ima gasho business dambe balaayo kugu dhacdo ma dhawaanay ma dhihi okay waa ku qasaaray ma wixii iga baxay lacag Soomaali lacag maalin walba soo gashaa adduunkan aan joogno geedahaas ay kulli lacag waa lagama walwala lacag waa suubina inta caafimaad qabtid caafimaadkayga le aniga ka aan la ordaa haddaan caafimaad qabo lacag waa suubin karaa bes markaas hadana business kalaan try garayna markaan ku guuleysto waan ku faraxsanahay inaan because maanta haddaan markii aan guuleysan haddaan ag fadhiis albaabkayga xidhmada ag fadhiisan lahaa albaabadan kale ma garaaceen ma taray ma bushgareeyeen naabka ma wareejiyeen so you always have to never give up on yourself. But always dadka kaleeto haddii soo kula jaan qaadaynin haddii dib kuu dhigayaan caadi waay you give up you can give up anybody else but weligaa don't give up on yourself mar walba waa inaad naftaada dooratid mar walba waa inaad suubisid wixii horay kuu wadaayo waxaad uusan dantaada ku jirin dan waqtigaada uma qalmo dantaada kuma jirto waqtigaada uma qalmo now maxaa lahaa kaleeto again taasna waxay ku noqotaa worthy ani markaan wax fiirsanaayo markaan qof la hadlaayo markaan wax waqtiga gelinayo su'aasha isweydiiyo waxaa ugu horeyso is this worthy of my time? Exactly. That's why conversation kasta kama qayb qaadanayay qof kasta afkayga lama gelaayay because conversationda qaarkood uma qalmaan waqtigeeda okay taas waa taas waxaan rabaa inaan ku noqdo Abaya Fathiya erey aad u fiican xarfi aad u fiican ay sheegtay oo ah waxa markaa jeceshahay oo ku baluulaysa oo ku kala baxaya example isticmaalada gabdhaha yaryarani dadka fashion ka suubinaayo dhar kala duwan isku taray garayna guys weligaa hamigaaga hayasin ani maxaan haystaa gurigay bahla iyaala Fathiya oo literally chikadeedii ku taala meesha aan waqtiga badan ku qaato like eediyadaasayto waa meesha biyadu ku suubi waa meesha u badan ayaa fadhiya waxaa ku qoran do what makes you happy suubi waxa farxadda kuu keeno guys markaan suubisid wax farxad kuu keeno dhowr waxaa dhacayo tan koowaad dhaceysa horta koo waxaa waaye you become so good waa ku fiican tahay xataa adigoo madow ah muslim ah wax ku discriminate garayn kara male because waxaad suubisaa ku fiican tahay qof walba adaa lagu baahan yahay marka waxaad suubisaa ku fiican tahay adaa lagu baahan yahay laguma discriminate garayn karo qofkii ku discriminate garayn is going to be their loss because you bring a lot to the table so laguma discriminate garayn karo tan saddexaad waxaa waaye bismillah markaan suubinaysid waxaad jeceshahay waxaa maraysaa daruuraha aflatagsaa energygaaga waa high your energy is very high because waxaad suubinaysaa qofka waxaa jira wax la dhaho high vibration low vibration jirkeena korontuu ka suubisan yahay jirkeena waa koronto uu ka suubisan yahay marka korontadaasayto markaad suubinaysid wax aan neceb tahay now I understand sometimes waxaa necebta oo suubinaya dan daraadeeda shaqooyin waa soo hayay markay businesses i kala kici waayaan oo ku soo qasaaro shaqadan ku noqon jiray oo lacag baan soo suubinayaa saa business kale haddana u taray gareeyo marka maxalla intaas aan shaqada suubinayo dantayda indhahayga barayskayga uu ii saaran tahay aragtideedan waxay ii saaran tahay meeshaan u socdo bas wax kale shaqada jirkayga la haystaan maskaxdeeda ma haystaan hamigayga dhan wuxuu ku maqan yahay GPS-ka maxaa waaye sidaan ku gaari lahaa meesha aan gaarayo because wax walba steps loo baahan sidaan dhahayo success accident ma aha well you have to do specific things u baahan tahay inaad suubisid haddaa rabtid successful inaad ku noqotid wax walba wixii noqotaba nooc kasta adduunka ay noqon kartaa marka maxaa lahaa kale koo waa inaa adkaysatid haddii little short time ay jirto inaa ahaatid waa qof leh waxaa la dhaho resilience wixii hadda dhib kasta aaminayso oo adkaysanayso sababta waxay ogtahay beri meesha u socod meeshaas aad ku caddo waxaad ku siyaa uma jeedid marka always ku dadaal inaad suubisid waxaad jeceshahay because waxaad jeceshahay markaad suubisid
bismillah, you become so good. وكفعناني همي أو هني سيدا باي شيء يسي فتحي وحيد هذا حتى شقة مدريميس يعني وحن شقة عن 80 hours a day 10 hours a day شقة إني ساعة 80 hours a day 10 hours a day 8 hours a week أكوده شقة إني ساعة لكن مدريميس شقة عمل because you're doing what you love. Absolutely. So always operate from that place. What will be as you business ubadi waxyaalaha aad jeceshahay wixii kaleetana nolosha kamid ah waa okay. midda marnaba kuma khasaaraysid horta wax walba soo qabato exactly sida aad sheegtay aan ku sheegtay and waxa la yiri the average business person is successful ka noqda and 18 times buu soo tarigareeya business ama soo khasaara so waxa weeyaan hadda waynaga ogaanay the past I think the last 5 sano 6 sano ugu dambeysay even jaamacadaha waxa lagu dhigaa failure حتى failure لوجما يرد anymore. There's no such a thing as failure. Exactly. وحويان because وحوال كبرنيسا just like anything else. وحوال بات صومرتو especially هذا القف إيمان لقاطعي واحد دريميسا ذاتكي عن قاركود حتى إلهي رميسنين بابا رميسن nothing is marked accidental. وح marked. Exactly. فتحية هالوحيد أنا قرأنا قدر سرعله. Exactly. Point كذا مهم واي. So وح أو وحدة البايو محلها كلاته وح أو متجرو نمسع failure هم جوارون تهذا محاوى متقانا. مركي وحكوش قين واي it builds character actually. مركي قفوا بق and I think that's one of the reasons أنا واحد the way I سوته the more مرتد ويكون سيدنا برتد يكون نقوم ويسو وحابرنا الساعة إنا work around it إنا جيسا كمرتد problem solving كاجا إرك تياعي so إنا مرمر كسرتد إنا مرمر فشل مرتد وامهين ولو بهنيا because واسمنا الساعة إيه وده بايرال of course ها exactly وكل لسه يعني واحد وقانا يسا واحد مربى واحد سيبرنا يسا واحد كوفي عنت هاي iyo waxa aanad maaragtay iyo waxaad enjoy garanaysaa ama jeceshahay iyo waxaanad jeclayn ma garanaysaa marka waxa weeyaan wax failure la yiraahdaa ma jirto wax failure la yiraahdaa ma jirto waxa failure noqonaysaa sida ay muxubba sheegtay failure waxay noqonaysaa marka wixii aad ku guul daraysatay aad iska fadhido muxuu yiri Albert Einstein the definition of insanity is doing the same thing over and over again expecting different results waalida macnaheedu ba waxa weeye in wixii aad ku guul daraysatay wali aad dabada hayso adiga oo filaya ama sugaya in ay isbedel keeni doonto marka weeye markay failure noqonaysaa you know haddaad muxuuha aad isku dayday certain business oo aragto waxaan inaan waxaad jeceshahay ahayn waxaad ku fiican tahay inaanay ahayn and waxaad maaragtay you give yourself enough time waqti kugu filan waad siisay uu shaqayn waaye haddaad iska dul fadhido then it's a problem marka failure way hadii marka you know wixii wax ka bedel wixii shaqayn waaye adigoon xataa businesskii give up ku sameeyeen wixii wax ka bedel wixii shaqayn waaye wax ka bedel wax kale isku day because waxa laga yaabaa meel yar oo wax ka tirig yihiin haddaad inta yar aad gududka ka biiso wixii inay maartay daruuraha tagaanba ma garanaysaa in my store xiriirkoo kale any relationship it's never a failure waxbaad ka baratay wixii markii hore sidaad doonaysay hadduu ay wax noqon waayaan ha ku sii dhegin ma garanaysaa do the best you can while you're in it haddaad aragto qofkii inaydan isku meel u socon idinkoo xataa isku xumaan often times ina waxaad arkaysaa waa la isku xumaanaya waa la isku baabaaya waa la isjiidanaya idinkoon isku xumaan si qurux badan ayaa lagu kala dhaqaaqi karaa and bam waxbaad ka baratay yeah next time ka waad ogtahay waxaad raadinayso iyo waxyaabaha aanad ku gelaynin iyo waxyaabaha aad ogtahay inaad maaragtay aad ka soo baratay xidhiidhkii hore marka it's wax walbaad soo martaa ama business ha noqdo ama shaqo ha noqoto ama imise qof baa digriyadii ay ku shaqaysteen computer science baan bartay weligay kuma shaqaynin ma garanaysaa marka waxa weeyaan and actually 65% of dadku degrees waxay degree ku qaataan ay bartaan kuma shaqaystaan but it's never a failure because waxbaad ka baratay imka degree baad haysataa dadku way kugu ixtiraamayaan ma garanaysaa not that degrees are everything because some of the most successful people in the world actually kuwa ugu successful sanba college may dhamaynin marka adigu calaa kulli xaal waxa weeyaan
know who you are baro qofka aad tahay adigu isbaro first and foremost adigu isbaro markaad isbarato kadib yaa ka tanaasul waxyaabaha maaragtay xaasidnimo hadday kugu jirto meel iska dhig cirq maaragtay masayr hadduu kugu jiro meel iska dhig qabyaalad hadday kugu jirto meel iska dhig adigu ka feker waxyaabaha aad isleedahay ilaahay jeclaan maayo oo dhan si ilaahay kuugu fududeeyo wax walba because inagu hadda dadkaan la hadlayno waxay u badan yihiin dad maaragtay Soomaali oo muslimiina if really first and foremost noqo qofka aad isleedahay ilaahay wuu khushuucaya oo wuu jeclaanaya ya number 1 waxa weeyaan ilaahay adiga waxba kaaga ma baahna I'm not talking about salaad iyo soon iyo markaan sidaa leeyahay noqo qof wanaagsan oo bini aadanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta uu isagu la jecel yahay la jecel og inay dadku dareen leeyihiin inay xaq u leeyihiin inay horumar gaadhaan in cid ka sarreysa aanay jirin in ma garanaysaa aad wanaag iyo waxa aad adiguba la jeceshay naftaada aad la jeclaato walaalka because muxuu yidhi rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qofka muslimka ah ee inta uu isagu jecel yahay aan la jeclayn walaalkii muslimnimadiisu convictionkiisu complete maaha muslimnimadiisu ma dhama marka horta bal noqo qof wanaagsan oo nadiifa si energy-gaagu maaragtay hadda anigii muxuu waxyaabahan ka sheekaysano waxa ka mid ah we're always happy wallahi a life of joy waxa habeenkiina anigoo waxa seexdaa I am so happy marmar ay ilma isku kaysoo taagtaagtaa I am happy I am fulfilled yeah wallahi from the depths of my soul ayaan ka faraxsanahay yeah subhina I cannot wait to wake up yeah and tackle the day because I know it's going to be a glorious beautiful day mashallah yeah marka hadda doonayso inner joy inaad hesho inner joy ya farxad ma hatta happiness farxad de maartay aan ajiiba oo from the depths of your soul de qalbigaaga halka uu shiraysa ka timaada first of all noqo qof wanaagsan oo duntiisu wanaagsan tahay oo dadku ka nabad galaan oo gardarrada neceb oo foolxumada neceb jeclow quruxda love beauty love nadiifta wadooyinka markaad marayso ka leexi waxyaabaha ku daadaata qashin haddaad kaa soo horbaxo meel kastoo timaado kaga tag si ka wanaagsan sidii aad ugu timid noqo you become your own role model yes create the world you want to see waxaad dadka xataa noloshaada markay soo galaan you know always aim kaaga ha ahaado qofkaanito intaa awoodidee ma aha inaa obligation aad dareemaysid inaa qof isku dayaysa inaad bedeshid iyo waxaas nothing force wax qasaba dhan ma jiro laakiin dad markay noloshaada imaadaan xataa isku day inaa sidaa ku kala markaa kala tigtiin sidaa iskugu imaateen inay ka fiican yihiin adi inaa ka fiican tahay always adi xataa like you can pour from an empty cup koob eera wax kama shubi kartid koobkaada dadka kale koobkooda wixii kaada kasoo buuxa ugu sii korshub you know so like sidii abay sheegaysay wallahi inaad faraxdid way dhacaysaa automatically markaa dadka kale u faraxsan tahay markaa dadka kaleeto ammaan siisid oo dhahdid you know what dadkaanita ilaaha abuurtay wax walba aniga u qalmo qof walbana wuu u qalmaa markaas maxaa kaa yaraanayo koo waxaa kaa yaraanayo inaa adiga in competition dad kale kula jirtid camal because in competition markaa ku jirtid aniga inaa bis helaan raa waxaas qofkaas kusuma qalmo qofkan waa ilaysana waxyaalahaas dhan waa waxyaalaha iimaanka kaa qaadaya iimaankaaga markuu kuu buuxo guys $5,000 qofka 5 milyan kaala qiimo badan qof walbana wixii adi naftaada ala jeceshaa la jeclaanay goos adi xataa waxay ogtahay inay u qalantid wax kasta oo wanaago ilaahay ku siinayo marka taas hala xasuusto wixii iyo always muraayad baa tahay waxa dadka kale la jeceshaa la maskaxdaadana galaayo soo ha u malayn xataa inay ku saabsan dad kaleeto wallahi maskaxdaada waxaan subconscious mind kala dhaho maskaxda gudaha ah waxay register gareynaysaa waxaa ka fakeraysid fakarka dadku xina u haysid midkii fiican u haysid waxa dhan way register gareynaysaa so for your own good wax fiican le bista kala xataa u gasho indeed ma sha Allah and adigu ala kulli xaal waxa weeyaan ma sha Allah wixii aan oran lahayn ba hadda nidhiye waxa weeyaan halkaas aan ka sii wadaynaa insha Allah biidnillah gabagabadii baan ku jirnaa I think muhiimadu waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan ala kulli xaal waxa weeyaan and marka aad qof wixii hore kuugu shaqayn waayay and always isku day inaad ka gudubto aad
wax ka wanaagsan aad u gudubto qof wanaagsan aad noqoto dadka wanaag aad la jeclaato wixii dal iyo dadba inagayna soo dhibaateeyay inaad ka guurto antaa micnaheedu maaha for example aniga hadda dad badan baa waxa ka dhaadhacsan hadda waxaan arkay mid soo qorayay she used to maaragtay troll I don't know inuu adiga ka hadlayo inuu aniga iga hadlaya I think maybe labadeenaba Somali community-ga no Somali community-gu they're not above criticism you know culture-kaaga waad criticize garayn kartaa dadka dhibaataynaya waad criticize garayn kartaa there's nothing wrong with that نعم the notion in aan maaragtay wax walba dadku ay sameeyaan aad ka aamusto aanad waxba odhanin anigu dadka imaaga iskama celiyo I let them maaragtay dadku waxay doonaan aniga hayga sheegaan laakiin usually dadkaan u hiiliyaa especially those dadka masaakiinta aan codka haysan ayaan u hiiliyaa muxubbana saas ay ahaan jirtay iyadaaba iiga horreysay oo bilowday andan marka anyway marka calaa kulli xaal taasoo kale waxaa la yidhaahdaa standing on the right side of history wixii shaqayn waayay inaad tiraahdo ha la daayo ha laga gudbo oo aad dhaqankaaga iyo dadkaaga dacaayadayso ma aha xumaan iyo xaasidnimo in fact waxa weeyaan waa waxa ilaahay doonaya subxaana wa tacaala suurat nisaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu yidhi waxaa ka mid ah kuwa xaqa jecel ee ilaahay rumeeyayo mar walba xaqa barbar istaaga hadday tahay inaad naftaada kaga soo horjeesato gardarrada hadday tahay inaad waalidkaa kaga soo horjeesato hadday tahay inaad maaragtay ehelkaaga kaga soo horjeesato hadday tahay kuwa ladan ee waxaysta ee maaragtay iyagu isdoor biday inaad kaga soo horjeesto because why ilaahay baad markhaati u tahay marka ay raada anigu always inaan ilaahay markhaati u noqdo dan inaan dhahdo Soomaalidu ha ku jeclaato I'm not here to be inaan jacayl cidna ka iibsado because ana is jecelba ilaahayna waa jecel yahay and that's the bottom line صح exactly people pleasing marka ku mashquul ku tahay dadka ku jeclaadaan inay dhahay wixii dadka rabaan bis waa markaas you can't be yourself that defeats the whole purpose of dadka soo hadlay like waxaan soo sheegay dhan ma noqon kartid hadda dad kaleeto maxaa lahaa you're mirroring dadka kaleeto dareemahooda wixii la fiican maalintaas u noolaatid bis waa noloshaada qiimo ma lahan mana noqon kartid qofka aragtid and you're not being your authentic self. So we don't want to do that. We want to be true to ourselves. See the the truth. Because you can't deliver truth other than truth yourself other than him. Indeed. And dadkuna way ku arkayaan people see through you ma garanaysaa dadku way ku arkayaan markaanad authentic ahayn ma garanaysaa qof original markaanad ahayn and if you're a sheep follow gareeya marba dhanka heer ku cararto maarta xooluhu cararaan adiguna ama dadku cararaan aad la cararto haddaanad ahayn qof keligii istaagi kara dan micno weyn samayn maysid dadkuna way ku arkayaan qof ay wax ka qaadan karaan inaanad ahayn dadka adduunka bedelay oo dhami waa inay waa dad keligood istaagi kara yaa keligood istaagi kara marka ujeedadu calaa kulli xaal isku soo duuba waxa weeyaan you are capable wax walba ilaahay wuu kugu dhamaystiray wax walba ilaahay subxaana wa tacaala wuu kugu dhamaystiray dallada xiddu ku siiyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaqad karamnaa bini aadan oo dhan baanu karaamaynay kuwaa la karaameeyey baad ka mid tahay kuwaa la baryayo maalin dhaweyd waa aniga idin keenay nin halkan ku jiro oo dadku baryayaan oo isaguna markuu halkan soo galay wuxuu ahaa dad GoFundMe buu samaystay nin cad oo halkan oo muslima siduu u yasayay afrikaan baa intaa baryayadaas wax buu hayay $100 si $50 si baa loo soo qorayay you don't need qof bini aadan inaad bariso ilaahay baa ku karaameeyey oo ku galladay oo wax kasta ku siiyey dib isugu noqo adigu dib isugu noqo annaguna we're here waxaanu idin joognaa halkan aanu idinku soo fadhiisanaynaa inaanu idin motivate garayno inaanu idin tusno annaguba idinkoo kalaanu nahay gabdha maaragtay Soomaaliyeed oo mid waliba xil saaran yahay oo maaragtay isku dhaqan iyo isku meel aad ka timaadeen baanu nahay and we created a beautiful life for ourselves ma garanaysaa and to the point muxuba way ogtahay it's very difficult for me xataa inaan dad wax ka qaato hadday dadku xataa waxay la damcaan waxaan dhahdaa you know alla way igu adag tahay muxuba waxay ahayd dadkii ugu bilaabaynaa iska aqbal wixii dadku siiyaan you know marka because I realize ana iskoriyay ana for a long time anigo maartay after 20 jira wadankan ana intii oo dhan on my own marka waxa way kugu adkaanaysaa markaad kaliga aad adigu isu soo haysay xataa inaad qof wax uga baahato haddana you can make it haddana you're not an island xataa in dad gacan ku soo siiyeen in dad ku encourage gareeyeen in dad wax ku sheegeen
in maaragtay annaguba dad nala mida baanu maaragtay wax ka akhrisanay ama buug ka akhriso ama program ka daawo ama qof aad la tashatay oo maaragtay ku riixa oo kula taliya ha noqdo. No man is an island, waynu isu wada baahannahay and waxa weeyaan waxbaynu kala wada faa'iidaysan karnaa. Qof every single person oo ka faa'iidaysan kartaa. Ilaahayna wuu ku galladay, wax kastana wuu ku siiyey, hareerahaaguna waa buuxaan. Waxaad ogaanaysaa waxa aad capable tahay iyo waxa aad doonayso iyo meesha aad ku socoto marka aad waqti isa siiso ee aad isfahanto ee aad qofkii hore iyo wixii hore kaa khaldamay aad go'aansato inaad ka timaado oo ka tagto. halkaasaan aanu kusoo gabagabiyey. I thank you for your time. khayr iyo baraadaan idin rajaynayaa. I love you muxibbo. Thank you so much for your time. You are a jewel. Allah ku barakeeyo. ilaahay kulankeena dambe. I am done. Bye. Thank you so much for coming. I don't know. Sometimes coming, Maheta, we're co-hosting this. You're not a guest. So, guys, we're having inaan soo join garaysiin qamiis kasta haduu la haraado waa suubina. We've been doing it hadda bil iyo xoogaa waa gaarnay intaan suubinoono. This like what our 6th Thursday I believe. So mar walbana waxaan ka hadlaynaa anaga goolkeena waxaa waaye inaan xoogga saarno maskax isticmaalida guys. maanta aragyaa qofka maqaayada ka shaqeeyo oo 12 hour ka shaqeynaayo dadaa jiro iyagoo xafiiska gurigooda maalintii 4 saac ka shaqeynaayo. But they're making lacag ka badan qofkaas ay idinsan oo maanta banaanka joogo. So lacag suubin doesn't equivalent to hard work. Hard work iyo lacag suubin shaqo isku malaha, laakiin maskaxda lacag isku dhaafaa. Marka anaga goolkeena waxaa waaye sidaa maskaxdaada u isticmaalaysid nolosha aad rabtid by design inaad ku dhisatid. aan ku idinla wadaagaynaa haddii la yiraahdo maanta wuxuu ku saabsanaa lack of scarcity, lack of fear of being seen. Marka, maybe we might even do part 2 for that because I feel like it's something that impacts. Oh my God, I think we should do part 2 next Thursday, inshallah. Because I see a lot of waxyaalo badan oo ku xiran. I don't want to be seen. I don't want to stand out. I don't want like be alone. I don't want to have this opinion just by myself. Like I hear all of that stuff. So waxyaalahaas dhan waa waxyaala u baahan inaan kaantaad gareeno. waa the reason aan u qabano topican hadalkaaniita khamiis kasta na soo join garee waxa waa 12 p.m. Pacific time-ka waaye standard time-ka iyo waxa waaye 3 p.m. Eastern Standard Time waaye. na soo join garee waa idin joognaa video waa soo gelinaa maxaa la dhahaa kaleeto khayr baa idin rajaynaa. We're gonna grow from here on. cirkale loo sii socdaa. There's no limit. maxay tiraahdaa Catherine Cameron? The limit does not exist. Absolutely does not exist. I love it. Limit doesn't exist. It's all in our mind. Ken anaga maskaxdeena waa wax walba. Marka fadhiya my beautiful sister ilaahay khayr ku siiya baayo oo maadsanta brilliant ideoyinka amaanuhu dadkeena la wadaagtid khamiis kasta. Marka adigana shaqada YouTube ka sii wad. Inshallah anigana I'll join you making YouTube for this type of discussion. hadduu la yiraahdo inshallah biidnillah. adinkana waa mahadsantihiin. Fadhiya khayran ku rajayna walaashay aad u mahadsan tahay. Love you, walaashay. Namaste everyone. Bye. Bye. All right, guys.